maxay galabsatay lascaano kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkan ku eegayno dagaalada ka socda lascaanood muddo haatan laga joogo tobaneeyo cisho ayaa waxaa ka socda dagaal aada u ballaaran oo waxba la isula harin magaalada lascaanood kaasoo saameeyey dhammaan bulshadii ku dhaqnayd halka lascaanood bal haddaba diiradda waxaynu saaraynaa dagaalku muxuu ku bilaabmay maxaynuse la rajaynaya ama saadaasha muxuu ku dambeyn doonaa lascaanood se maxay galabsatay intaanaynu gudagelin dagaalka ka socda lascaanood bal dib aynu ugu noqono siday ahaan jirtay magaalada lascaanood waxay ahayd magaalada lascaanood guud ahaan dhulka ay soomaalidu degto waa magaalada keliya aanu ka dhicin dagaal iska horimaad oo maanta kan ka dhacaya lamid ahi amaba la odhan karo waa magaalada aanu weli soomaalidu dhulka ay degto aanu saamayn dagaal laga qaxay oo faraha la isula tegay waxay ahayd magaalada lascaanood mid loo dhaqaaqo ama qof waliba uu camalkiisa iyo waxa uu qabanayay aroortii uu ka laho isagoo nabad ah waxay lascaanood mid ay iskuuladoodu furan yihiin dhakhaatiirteedu shaqayso baac mushtarkeedu shaqeeyo danyar iyo mid lodanba waxay ahayd mid lagu soo toosoo nabad qab hase haatee sanadadii ugu dambeeyey lascaanood waxaa dhacayay dalaal telteel ah oo mararka qaarkood soo gaarayay bulshada kuwaas oo ku keenaysay magaalada naxdin markasta oo dagaaladaasi dhacona rajada dadku ay noqonaysay mid ay ka filan karayaan inay abuurto qas ama colaado colaada ama dileelkaa dhacayay ayaa cid walba ay dhanka kale ku riixaysay iyadoo dil kasta oo dhacana loo filayay in ujeedo gaara laga leeyahay balse waxay ahaayeen kuwo sanadadii ugu dambeeyey isa soo tarayay intaa marka laga yimaado lascaanood uma aanay joogsanaynin hadday tahay baacmushtar hadday tahay mid ladan iyo mid danyaraba waxbarashadeeda iyo aasaasiga ahi waxay ahayd mid dhisan waxay ahayd horumarka magaaladu marka la eego mid aad iyo aad u ballaaran waxay ahayd magaalo fidaysa oo magaalooyinka dhismaya ee isha lagu hayo ama magaalooyinka ugu waaweyn ee dhulka soomaalidu ay degto ka mid ah balse nasiib daro waxaa isweydiin leh maxay galabsatay lascaanood ma aha waxa kusoo foolay lascaanood mid laga filanayay sidanay maanta u dhacday mase ahaa mid la damin karayay balse dabka yaa shiday taas isweydiinteedu waxa weeyaan mid aan qof kasta aanu ka labalabaynaynin siday ugu dhaceen waxay ahayd lascaanood mid ay ka soo yeedhayaan hadallo xambaarsan naxdin hadallo xambaarsan naxdin iyo werwer hadallo xambaarsan xaraf aad iyo aad u kulul oo werwer gelisay dadka balse bulshada ku dhaqane marna ma aanay filanaynin in ay waxaasi sida ay hadda u dhaceen ay u dhaci doonaan haddaynu ka soo qaadno dadka markaa xilliga lascaanood ka bilaabay colaada ama horinteeda waxay ahayd ubucuti ama dadkii nabadda ka shaqaynayay waxay ahaayeen dadka ay u magan ahaayeen waxay ahaayeen dadka ay ka sugayeen rajo iyo horumar waxay ahaayeen ummadii ka dhalatay iyo kuwii dhashay mid ood la wadaaga iyo mid wadan la wadaagaba hooyada danyar tahay waxay ka fikiraysay haddii ay hadalladaasi kiciyaan iyadoo masaariifteeda iyo nolosheeda ka soo hesha dirqi ama agoon korsanaysa ama danyaraba sidii ay falay lahayd iyadoo ilaahay gacmaha hoos waranaysa isla markaana aaminsan qadar kasta ama amar kasta inuu xagga ilaahay ka soconayo base fidamka ama dhibaatada dhacaysa ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa meeluu kaga aarsado uu u samaystay waxay lascaanood martigelisay dagaal arxan daran oo ka imanaya laba dhinac oo ku hirdamaya awoodda ama mustaqbalka kuwaasoon midna midka kale u aabba yeelaynin siduu hadalka u dhigayo
waxa uu qof walbana ku soo ururtay cabsi iyo walwal ama geeridiisii oo soo dhawaatay ama mid uu ka nixi doono oo inuu dhiman doono. waxay noqotay mid ay nabadu faraha ka baxday iyadoo ay ku dhawaaqayaan dadkii ay maganta u ahaayeen. walaaladii lagu leeyahay halka ee amarka sugaya waa fulay gala dagaalka gala oo ilaahay shukr dadkiina difaaca oo dhiigiina difaaca oo ay aarkiina difaaca oo magaaladii maanta Laascaanood waxay noqotay mid uu dhiigu haydhaafayo. waxay noqotay mid uu dabka geliyay qofkii u maganahayd. waxay noqotay mid ay geeriyo fara badan ka dhaceen. waxay noqotay magaalo madow oo muruga leh. waxaad maqlaysaa idhagaha soo gaadhayaan codka rasaasta oo nooc walba ah. waxaad arkaysaa hooyooyin barooranaya, waa lagu gooblamay, waa lagu agoomoobay, waa lagu rajoobay. balse ninkii colaadan u ahaa sababta wali wuxuu sheeganayaa inuu yahay mas'uulka ummadda. ninka garaacaya wuxuu sheeganayaa inuu yahay mas'uulka ummadda. ninka xabadda ku ridaya dilaya waa kii la dhashay. ninka xabadda ku soo ridaya waa kii la wadaniga ahaa. ninka qaxiyay ee ninka baabiyay waa inuu yimi. Laascaanoodii bil ka hor iskuuladeeda furnaayeen, malcaamadaheeda furnaayeen, danyartu ay noloshooda raadsanaysay waa maanta mid ay qax, dhibaato, cadceed, dhaxan ay u heshanayaan. waxa daba isweydiin leh colaada yaa geliyay Laascaanood, yaa dhibaatadan u soo jiday gobolka Sool. qof kasta wuxuu arkayaa cidii ku dhawaaqday in xabadda la rido oo weerar lagu qaado oo dagaal la geliyo ciidamada ku hareersan. balse ilaa iyo haddada dadkaasi wixii lala soo gaarayay ama masaariiftii la islahaa ku qaboojiya waxa codsan ninkii dabka suray ee qaxiyay ee baabiyay ee barakiciyay ee agoomeeyay ee aan u turin baa maanta wixii loo soo ururiyay ayuu wuxuu leeyahay aniga weliba hala igu dhiibo si aan mar kale hub iyo rasaas u geliyo. hooyooyinkana waxay qaadayaan oo ay leeyihiin iyagu bacadka tuuran. waa arrin aad iyo aad looga naxo. balse waxaan leeyahay reer Laascaanood fadhiga haga kacaan, maskaxdana ha furaan. ninka u turaya iyo ninka dagaalka gelinaya iyo ninka baabiinaya ha furaan garaadkooda. mar labaad ha kacaan. intaas ayaynu kusoo koobnaa barnaamijkeeni tan iyo kulankeena waxaan leenahay isma dhaafno.